muuqaalkan waa muuqaalkii labaad ee taxanaha application-ka Forex Royal. Sida ka warhaysaan muddo 3 isbuuc ka hor waxaan soo dhigay muuqaal aan uga hadlayay barnaamijka Forex Royal, taasoo muuqaalkaasi aan ku sharxay barnaamijkan wuxuu yahay, waxa loo adeegsado iyo muxuu ahaa inuu sax yahay iyo in kale, iyo maaragtay faa'iidooyinkiisa iyo drawbackiisa inta waa u hadlay. Marka qaybtan labaad ee muuqaalka waxaan rabaa inaan uga hadlo ama aan uga jawaabo su'aalo ka soo noqday muuqaalkii hore. Waxaa jiro dad fara badan oo su'aalo ka qaba barnaamijkaas Forex Royal application-kaas. Marka waxaan rabaa su'aalahaas inaan ka jawaabo, su'aalaha inta badan ee la isoo weydiiyo. Horta su'aalaha muxuu ahaay laga soo weydiiyay barnaamijkan inta badan waa su'aalo isku wada eg oo marka sidaas darteed hal su'aal ayaan gelinayaa. Su'aalaha soo noqnoqda wax saas aan kala duwaneen waxaan gelinayaa muxuu ahaay hal su'aal ayaan ka dhigayaa, waana ka jawaabi doonaa insha Allah. Tan iyo markii aan muuqaalkaas aan soo dhigay waxaa xusid mudan in ay dad fara badan ay igala soo hadleen WhatsApp-ka iyo Instagram-ka iyagoo wax iga weydiinaya application-kan. Marka waxaa meeshaas iga caddaatay inaysan jirin weli ama inaan la helin xog ku filan ama macluumaad ku filan barnaamijkan. Marka waxaan rabaa inaan u guda galo. Marka su'aalaha ugu badan ee la isoo weydiinayo waxaa waaye Forex Royal iyo Forex maxay kala duwan yihiin. Su'aashan waa su'aasha maaragtay ugu badneed ee la isoo weydiiyay. Marka Forex iyo Forex Royal waxay kala yihiin laba ay kala yihiin. Forex Royal waa application. Application-kaasna waxaa develop gareeyay shirkaddan oo la dhahayo EDU Systems. Marka shirkaddan waxay sameysaa programyada muxuu ahaay waxbarashada. Tusaale ahaan oo kale shirkaddan waxay develop gareysaa barnaamijyo uu qofka ku baran karo ama aqoontiisa financial-ka uu kor u qaadi karo hab fan ah. Waxaana ay soo saartay application-no tiro badan oo hadda haddii aan muxuu ahaa fiirino application-kan la dhahayo Cryptomania way sameysaa. Waa application qofku ku practice gareynayo, qofka rabo inuu cryptocurrency-ga barto oo waa simulator. Marka waa virtual money, waa lacag oo virtual ah oo maaragtay qofka uu backtesting uu ku sameyn karo cryptocurrency-ga. Sidoo kale waxaa kaloo ay soo saartay shirkaddan Forex Royal oo ah barnaamijkii aan kaga soo hadalno muuqaalkii hore, oo maanta muuqaalkiisa labaad aan sameynayno. Shirkaddan ayaa markaa develop gareysay Forex Royal. Marka Forex Royal waa muxuu ahaa waa application, waa simulation application oo lagu talagalay in uu qofka maaragtay aqoontiisa financial-ka haddii ay ahaa lahayd Forex ama cryptocurrency hadduu rabo inuu kor u qaado, waa application ka caawinaya in uu muxuu ahaa aqoontiisa kor u qaado. Waxaan markaan aan usoo jeesanaynaa Forex waxaa waaye waa suuq baaxad weyn, waa industry. Waxaana la isku sarifaa lacagaha asoo waxaa jira offline asoo online ah. Muxuu ahaay kan online-ka ah dadka xirfadiisa bartaan, kadibna markay bartaan xirfadiisa akoono ayay waxay ka furanayaan broker-kaas oo access u siinayo suuqi, halkaasoo ay lacagtooda maaragtay intii ay kari karaan
ay dhiganayaan kadibna halkaas ayay ku trade gareynayaan brokerkana hawshaas ama yacni maxaa la dhahaye accesskaas oo u sii suuqa wuxuu ugu keenayaa khidmo ayuu ka jaranayaa oo yacni trade walbo ama heshiis walba qofka uu galo khidmad ayuu broker ka jaranayaa forex waa macnaha oo midka online-ka waa qaabkaas waa xirfad la barto muddo dheer ayaan muuqaalo ka sameynaynay wax ka badan 4 sano hadda YouTube-keena dib muuqaalada u daawatid muuqaalo aad fara badan ka sameynay buwaagna waa ka qornay waa muxuu ahaay waad soo daawan kartaa haddii aad u baahantahay macluumaad intaas ka sii dheer waana xirfad waana maaragtay qofku uu baran karo sidoo kale waxaa xusid mudan in uu faa'iido iyo khasaaro uu leeyahay qofka aan aqoontiisa aysan fiicneen ama gacantiisa aysan fadhinna waxaa waaye high risk waaye dadka inta badanna platformyada ama brokerada waxaa xusid mudan boqolkiiba wax ka badan 70 dadka inay platformyadaas ay maaragtay ku luus gareeyaan marka waa yacni xirfad lacagna waa laga sameyn karaa sidoo kalena muxuu ahaay khasaarana way leedahay ayadoo taa ayaan halkaa ayaan ku daynahaya waxaa soo haray muxuu ahaay midkan offline-ka ah sarifkana isagana dee waad garanaysaan dee waa midka aad dailiga aad u isticmaashaan oo waxaa laga yaabaa dee muxuu ahaay maalin kasta yacni waad safartaa tusaale ahaan oo kale waxaad ka safraysaa Soomaaliya oo kale Kenya soo marka hadaas maxaa la dhahaye ama kaba soo qaad tusaale fudud Mareykanka ka timid Kenya timid soo marka Kenya marka Mareykanka ka imaanaysid waxaad wadataa lacag oo dollar ayaa wadataa marka Kenya timid waxaad ku qasban tahay si aad muxuu ahaay nolosha waddanka Kenya aad ula qabsatid waa inaad lacagtaas dollarka Kenyan money aad ka dhigtid ama Kenyan shilling si aad awood u yeelatid inaad wax ku iibsato yacni of course lacag dollarka waddan walba way ka shaqeysaa si guud hase ahaatee lacagta yacni maxaa la dhahaye inta badan dadka ay ku macaamilaan waa lacagta waddankaas marka taa waxaa waaye saa weeyaan waxaa ku soo haray su-aasha labaad oo lasoo weydiinayo waxaa waaye application-kani legit miya mise waa scam horta wax scam la yiraahdo ma yaalo meeshaan barnaamijkan yacni scam ma ahan sababtoo scam u ahna waxaa waaye ma jirto qofka lacag uu dhiganayo ama uu maal gashanayo ma jirto yacni risk of money meeshaas ma jirto sidoo kale risk of information datana in xogtaada yacni ayadana meesha ma jirto oo application-kan markaa saa ula soo degtid horaa ka isticmaalaysaa kuma baahnid inaad emailkaaga iyo lambarkaaga iyo magacaaga waxa aad gelisid ma garanaysaa marka automatically hore ayaad ka isticmaali kartaa marka ma jiro sabab ama maxaa la dhahaye sabab maantay aan u dhihi karno application-kaas waa scam sidoo kale legit ma yahay oo application oo yacni lacagtiisa real miyaa waa sida aan hore usoo sheegay waa simulator waaye application simulator-kana waxaa laga wadaa tusaale ahaan oo kale in aad yacni wixii tusaale ahaan oo kale waxay reflection gareynayaan maxaa la dhahaye lacagtii tusaale ahaan oo kale hadda waxaa jiro geemam oo waxaa jiro oo inta badan yani dadka mobilada iyo isticmaala way garanayaan waxaa jiro geeman oo ku saabsan sida baabuurta loo wado tusaale ahaan traaga iyo maxaa la dhahaye bus simulator marka waxaa waaye simulatorkaasi yacni waa bas adiga waa wadaysaa baskii yacni qaab virtual ah mobilka ayaad maaragtay ka
isticmaalaysaa laakiin wuxuu reflection gareynayaa baskii caadiga ahay muxuu ahay real life-ka ama traagi adoo wadaysid camal taas ayay markaa reflectionkeeda waa saas marka barnaamijkan waa saas oo kale waa reflectionkiisa waxaa waaye wuxuu reflection gareynayaa muxuu ahay suuqii oo yacni tusaale ahaan oo kale wuxuu maaragtay waxaa tusaale ahaan oo kale waxbaad waxeenaysaa oo lacag macnaha virtual ah ayaa lagu siinayaa maaragtay waad ku shaqeynaysaa qaabkaas camal waana faa'iidaysaa waana khasaaraysaa laakiin faa'iidada khasaaraha ma ahan wax adiga saameyn kugu leh haddaa faa'iidid waa virtual waaye lacagtaas haddii aad khasaartana wax real ah lacag real ah ma khasaaraysid waxaana ka fahmi kartaa sababtoo ah applicationka marka horeba ma jiro option awood ku siina inaad lacag dhigtid marka sidoo kale waxaa meesha imaanaysa dadka su-aalaha qaba lacag ma laga bixi karaa waxay ku ogaa karaan inaan lacag laga bixi karin sababtoo ah maba jirtaba lacag ah markii hore adiga aad dhigatay inaad lacag la baxdo ama lacag aad sameydo waxay ku imaan kartaa keliya inaad lacag ay jirtay lacag aad maal gashatay sax marka haddaysan jirin lacag aad dhigatay ama aad maal gashatay markii hore muxuu ahaay taa meesha ka baxaysaaba oo ah lacag ma laga bixi karaa taa hadda meesha ayay ka baxaysaa okay marka applicationkan halkan ay kusoo gabeynaa muuqaalkan aad u mahadsantihiin